ilaahay wuxuu biyaha ka dhigay nolosha noolaha oo idil. Raggu waa inay cabaan biyo dhan 3 litir una dhiganta 13 koob oo biyo ah maalinkii. dumarkan waa inay cabaan. Bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Bacda salaam waa mar kale iyo muuqaaladeeni taxanaha ah ee caafimaadka bulshada oo aynu toddobaadkan kaga hadli doono faa'iidooyinka laga helo cabista biyaha. sidoo kale waxaan ka hadli doonaa cudurrada iyo dhibaatooyinka kale ee ka dhalan karo haddii uu jirkaagu heli waayo biyo ku filan. qadarka biyaha aad cabto maalin kasta wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa ilaalinta caafimaadka jirkaaga. raggu waa inay cabaan biyo dhan 3 litir una dhiganta 13 koob oo biyo ah maalinkii. dumarkan waa inay cabaan 2.5 litir oo biyo ah una dhiganta 9 koob oo biyo ah maalinkii. biyuhu waxay ka hortagaan calool xanuunka iyo calool xiranka, waxayna ka dhigaan dheefshiidka mid caafimaad qaba oo habsami u gata shaqadii dheefshiidka. biyaha wuxuu dheelitiraa dheecaanada jirka ku jira. dheecaanada ugu muhiimsan jirka ee laga sameeyo biyaha waxay ka qayb qaataan dheefshiidka, dhuuqista cunnada, wareegga dhiigga, sameynta caliyada, xambaaridda walxaha nafaqada. si jirka loo gaarsiiyo biyaha waxay ka qayb qaataan kontaroolka tamarta jirka. sidoo kale biyaha la cabo waxay jirka ka caawiyaan inay nadiifiyaan dheefshiidka iyo xubnaha jirka oo dhan. qayb waliba waxay u baxaan si noocyo badan oo ay ka mid tahay kaadi, saxaro iyo dhidid. biyo badan oo aad cabto waxay dhisaan murqahaaga. unugyada murqaha waa muhiim inay helaan biyo ku filan si ay shaqada joogtada ah u wadaan oo ah inay jirka dhaqaajiyaan qaybihiisa kala duwan. biyuhu waxay aad u caawiyaan shaqada kelyaha oo waxay jirka ka saaraan wasaqda iyagoo geeya kelyaha, waxayna ka shaqaysiyaan qaybaha kala duwan ee kelyaha. in biyo badan uu cabo qofka waxay u fiican tahay jirkiisa oo waxay ka hortagaan korqaleelka oo aakhirkii oo ku dhamaado inuu jirka jeexjeexma ama laablaab ku imaado qofka asiga uu da' u noqon. biyo badan oo la cabo waxay ka caawinayaan inay ka daaweeyaan waxyaabo badan oo jirka ku qarsan, ha ahaadaan cudurro ama fayras jirka ku dhagan. dhibaatooyinka caafimaad darro ee ka dhalan kara biyaha cabistooda oo qofka uu ka gaabiyo. dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah tabardaro guud oo qofka ku timaado guud ahaan jirkiisa, qofka oo ay la soo darasto dhibaatooyin xagga dhaqdhaqaaqa caloosha ama ku imaada calool xiran. sidoo kale qofka waxaa ku imaan kara cudurro kala duwan sida cudurrada ku dhaca kelyaha iyo kaadi mareenka. sidoo kale qofka aanan qaadan biyo ku filan hargiis wuxuu noqdaa qaleel, deedna waxaa ku imaada jeexjeex, laalaabka wejiga iyo daal. ugu dambeyn, cabista biyaha aad ayay muhiim ugu tahay in caafimaadka, balse waxaa ka muhiimsan in biyahaas jirka laga saaro oo qofka uu sameeyo exercise sida rucleynta iyo orodka si maalinle ah si jirka biyo badan oo u lumiyo. intaas ayaanu ku soo gabagabaynaya. fadlan ha iloobin in aad muuqaalka laag saarto, sidoo kale aad sheergarayso oo aad gaarsiiso asxaabtaada si ay ugu faa'iidaystaan. intaas ayaanu ku soo gabagabaynaya. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakatuh.